waxayna kala aqoonin muwaadinka ay mas'uulka ka yihiin iyo waxa weeyaan deegaanada kale ma kala yaqaanaan xadoogeeyeen maanta oo xisaabta inoogu jirta dan la helay iyo meeshii loo oranayay labadii qabale federaalkii uu ka guuray cobal iyo dan la helay federaalkii uu ka guuray canfar baa soo degtay shalay daraad waxay soo weerareen shacabkeena laba ka dhaawaceen dad aqliga bini aadamku waxa ogtiin shalay toole soo ururin 723 askari oo wiilasheena waran banaanka ma dhacday in 200 oo kun aynu ka aasanay ugu yaraan 500 oo askari baynaan meydkooda indha saaran xukuumadda matalays bilaa calaykum aqliga saa wax u dhigay aqliga bini aadamkii halka maray ma yaqaan dadku matalayo bal dad kamale bal isaga nagaga caawsan xukuumadda Mustafa Cagjar waxaan oran karnaa Tigreeyada nagaga daran oo Canfariyada nagaga daran oo Axmaariyada nagaga daran oo Banuushaangoolyada nagaga daran oo qoomiyadaha Itoobiya oo dhan iyada nagaga daran dadka kale naga xiga waayo xukuumaddu hadayna qof muwaadin ah oo keeda inay magac u bixiso inay eriyato iyo inay xidha mooyeen ayna qofkeeda naxariis u galin oo moolima maqasheen xukuumadeena meel intay tagtay ardayda waxa dhacday tijiga maanta wala wada degay jaamacad tijiga wala dhigta arday Soomaaliya oo jaamacada Itoobiyaana dhigta ma jiro ardayda Soomaalida kamida oo jaamacadaha Itoobiya tay karaay ma jiro halku taagan yaa lagu jarsaray xukuumadeenu ma awoodo intay u tagtay inay taa warda ardaydiiniba waan haynaa kuwa nagana noo amaan galiya kala ma hadda karaan halka ma gaarsanaba dadkani waa dad anagu cadaawad noo qabay dad anagana mataliyo dawladda Itoobiya wax nooga soo dhicin kara ma hada kaano ku dheeran waxa way qofka bini aadamka markay waxba kaaga cuntami waayaan waxyaalo badan baad ku hadli waadun ciil hadli waxaan noqonaynaa shacabkii deegaanku hadda inuu qof waliba maanta hadlo uma taagana xukuumadani hana dhaafto shacabku doorasho xukuumadda yeena dooran xukuumad kuma tilmaami kara shacabo 5 sano oo dambe uma bardhay karno in aynu dulmiga iyo cadaalad darrida iyo isla weynaanta aynu ku noolaan 5 sano oo dambe aatidee 3 bilood dambe Mustafa Cagjar haduu sii joogana deegaankeenana waa la inaga qaadan waxba qarimaynaadeen deegaankeenana Axmaariya Itoobiya buu ku beeran waana la inaga qaadan inagana waxa weeye magacyo la inoo wada bixin qixi 4 iyo 9 inagu dhacay ku ka daran oo aynu xuduudaha Soomaaliya galay inagu dhacay haduu maanta Mustafa Cagjar sii joogo yaynaan dooran yaynaan dadkan aynaan waxa weeyaan aynaan isku halayn qof kasto muwaadin oo amnigeena iyo deegaankeena iyo hay'adaha ammaanka la shaqeeya garab taagno laakiin Mustafa Cagjar iyo afarta la socotanama matalaan yaynayna matalin waxa weeyaan dadka waan tufnay in wax noo filan damiirkeenu ha noolaado shacabkeenu damiirkeenu ha noolaado ninkan aynu isdhaafino xukuumaddiisa aan isdhaafino wax doorasho la yiraahdo Mustafa Cagjar maanta anaga nagu matali karaa iyo waxaynu u joojinaa iyo xitaa qalbigeena aan ka nacna inuu mas'uulinaga ahayn iska daa codaynu siinay qalbigeenu ka nacayna waxa weeyaan waa qof kulku malcuun yahay qalbiga laga naca naxariis inoo haye inaguna naxariisayna u galin waa dayusnimo hadaynu maanta Mustafa amaaniyo wax la daba orodniyo jacayl iyo qalbigeena naxariis noo gal waayo isagu inoo haye isagii xukuumaddiisu inoo haye waxaan ku soo koobayaa shacabkayo aynu tashan macquul ma aha inuu 9 milyan Mustafa Cagjarkii shalay shandada watay oo inaga miisaan bato معقول ما وهنتنا كنت كفلا سودونيين واحد أينا دورنا عن قوان قادنا قف كسقوان قف ولا منا عبوس حدين لا يحرم أنت واحدة بمله تدوال سوي حريتري وأنا لا سوي ديريتري لكن حقا إنا كجبرنا ما حرك ودي بيريه حقا إنا كجبرنا ما قف كستو لف سوقل قف كستو قرار سوقل قف كستو والشاك دول ميجا ماشي كتير أمني جينا ناني لاشن السلام عليكم ورحمة الله